السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. barnaamijku waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intii aynu kala maqnayn. xaaladda bariga dhexe maxaa ka soo kordhay? haddaba qodobada barnaamijkan idinku soo gudbinayno waxaa ka mid noqon doona Iiraan oo maalinkii labaad malaayiin dad ah loo ogolaaday in ay sabootiyaan oo ay ka qayb qaataan munaasabada u ducaynta iyo aaska qaran ee Ayatullaahi Khamenei iyadoo maantana loo ballansan yahay salaada janaasada in lagu oogo oo la tukado wadanka oo dhanna waa la fasaxay. tafaasiil ku saabsan sheekada waan idiin soo gudbin doonaa. bin Gvir wasiirkii amniga ee Israa'iil oo ka baqay inuu tago New York isagoo loo sheegay haddii uu halkaa tago in la xiri doono. haddaba xaaladda bin Gvir iyo cidda xiri lahayd ayaynu barnaamijka iyana idinkugu soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu haynaa shirkadda diyaaradaha Saudi Airlines oo iska bari yeeshay warar saacadihii lasoo dhaafay si weyn u qabsaday baraha bulshada kuwaasoo sheegayay in shirkadda diyaarada cusub oo Boeing ah ay u iibisay Iiraan. haddaba sheekadan la yaab kale ayaa iyana aynu barnaamijka ku soo qaadan doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu haynaa safiirka dowladda Iiraan u fadhiya Shiinaha oo isaguna faahfaahin dheeraada ka bixiyay qaabka loo mari doono marinbiyoodka Hormuz isagoo sheegay dowladaha saaxiibka la ah Iiraan in il gaara lagu eegi doono iyada oo markaa aan markaasi wax lacaga laga qaadi doonin. haddaba sheekooyinka xiisaha leh ayaynu saakay barnaamijkeennii ugu horreeyay ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirnana wixii waranaya Iiraan maanta waxaa haddana mar kale dadweynaha ay sabootinayaan una ducaynayaan salaada janaasadana weliba saakay lagu tukanayaa Ayatullaahigii geeriyooday ee dalkaasi Cali Khamenei. haddaba aaskan qaran ayaa socon doona ilaa 9 bisha oo ah markaa la xabaali doono oo markaasi la dhamayn doono hawshan. haddaba wararkii ugu dambeeyay saakay laga qoray sheekadan haddaan idinla wadaago. Iiraan waxay wadaa weli aaskii qaran ee loo sameynayay Ayatullaahigoodii hore Cali Khamenei magaalada Tahraan ayayna ka socotaa. haddaba waxaa la sheegay in markaa ay ka qayb qaadanayaan dad aad u fara badan oo malaayiin lagu tilmaamay inay booqanayaan si ay ugu duceeyaan. haddaba waxaa sidoo kale ka qayb qaatay aaskan intii uu socday wafuud ka socotay sida lagu waramay 30 dowladood oo caalamka ah. maanta ayaa la sheegay in janaasada lagu dukan doono iyadoo la sheegay in aan la ogeyn janaasada cidda markaasi tujin doonta dadka iyadoo inta badan Ayatullaahiga wadankaas uu imaamka yahay oo isagu tujiyo maadaama wiilkii arrimo amni la yiri ma ka qayb galayo yaa tujin doona marka weli marka lama sheegin. haddaba waa arki doonaa kollay maalinkii labaad hawshu socotaa ilaa marka dambe sabtida iyo xadda markay dhamaato kadib waxaa bilaabanaya in la qaado oo la geeyo magaalada Qum, Karbala, Najaf oo Iraaqa iyadana kadib la aaso markaa odaga. qodobka markaa isaguna halkaas aan kaga gudbaynaa. Iiraan marka hawshaas ayaa ka socota. qodobka kale ee barnaamijka ninkii bin Gvir ahaa ayaa waxaa la leeyahay wuxuu ka baaqday shir muhiim ah oo ka dhici lahaa magaalada New York kadib markii lagu wargeliyay in loo diyaarsaday shuruuc iyo qawaaniin lagu dacweynayo xabsigana la dhigayo. wuxuu dib u eegay magaalada yaa madax ka ah nin muslim ah xaalka waa xun yahay ayuu yidhi. odagii markaa lafihiisu u baqaalay yidhi. haddaba horey waxaa ninkan ugu dhaganaa dowlado ay ka mid yihiin Faransiiska, Ireland, Spain, Talyaaniga waxaana loo haystay inta badan dhibaatooyinkii uu geystay ilaa dadkii ugu dambeeyay doomihii Gaza ku socday sida uu sawirada qaldan uga soo qaaday iyo waxyaabahaas oo dhan. marka arintu haddaba saakay warka ku socda ninka la yiraahdo bin Gvir. warbaahinta Israa'iil ayaa saakay sheegaysa bin Gvir inuu kansalay ama uu joojiyay booqasho uu ku tagi lahaa New York isagoo ka baqaya in xabsiga la dhigo.
wargeyska weyn ee Israa'iil ka soo baxay liiraado Haaretz ayaa sheegay in wasiirka amniga gudaha Itmar bin Ghavir uu joojiyay safar la qorsheeyay inuu ku tago New York kaasoo uu kaga qayb gali lahaa shir madaxda booliiska adduunka ay qaramada midoobay qaban qaabisay oo lagu casuumay uu ka qayb gali lahaa. haddaba waxaa la sheegay kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha inay diyaarsadeen qaabkii xabsiga loo dhigi lahaa. marka ninkan laba isugu darsood kooxihii oo maaragtay xuquuqda aadanaha iyo looyaradoodii oo diyaarsan oo ninkan hadduu yimaado inay dacwad kusoo ogaan rabay iyo maamulkii uu hogaaminayay ninkii muslimka ahaa ee meesha madaxda ka ah New York oo isaguna uusan rajo badan ka qabin inuu badbaadinayo. odagii marka waxaa la leeyahay meelaan u socdo malahu dhahay. waana markii ugu horreysay nin wasiira oo Israa'iili ah uu lafihiisa uga boqo Maraykanka meel kale iska dhaaf waxyaabaha adduunyada kusoo biiray ka bitaa lagu leeyahay Israa'iil wasiir ah oo Maraykanka lafihiisa uga baqaya in xabsi la dhigo waa markii ugu horreysay taariikh. macnaha saaxiibka ugu weyn Israa'iil ay leedahay waa Maraykan, isagaa difaaca isagaa ilaaliya. haddana odagii maanta lafihiisa u baqaala leeyahay arrinkaasu halkaasuu maraya. wararka kale ee saakay saaran warbaahinta waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha Sacuudiga laga leeyahay ee la yiraahdo Saudi Airlines ayaa waxay si kulul u beenisay warar saacadihii lasoo dhaafay la isla dhexmaray kuwaasoo sheegayay in shirkadda diyaarada waaweyn oo kuwa rakaabka qaada Boeing 7 inay markaa u iibisay Iiraan Sacuudiga inuu diyaarada u iibiyo sidee ku dhacday. haddaba marka warar kala duwanaa soo baxay waxaa leeyahay Iiraan waxaa laga mamnuucay sideedaba cunaqabateyn Yurub iyo Maraykan ay saareen waxaa ku jira inaysan ba iibsan karin diyaarado iyo xataa dayactirkooda. marka waxaa leeyahay xataa shirkado Iiraan xiriir la leh lama siin karo waxba lama samayn karo. marka Sacuudiga waxaa leeyahay qaab farsamaysan Iiraan u weydiisatay shirkado marka iyaguna uu soo iibiyaa la leeyahay sida lagu eedeynayo. Sacuudiga wuxuu iska laaluushayaa la leeyahay Iiraaniyiinta asaga marka diyaaradahan asaga magaciisa shirkadda magaceeda ku soo qaadaysa Maraykanka laga soo gadayaa Boeing kadibna shirkado Iiraan ayaa lagu wareejiyay. shirkadu marka yaabay noqotay. Sacuudiga iyo Iiraan waaba isku dhaganaa jireen waayadaas sidee marka arrinka u dhacay. qaar marka waxa ku fasirayaan in ganacsi ahaan shirkadahan Iiraanka iyo Saudi Airlines ay wada shaqaysanayeen oo Saudi Airlines ay ku jirtay. qaar waxay leeyihiin si kale saaxiibtinimo kala jirtay, qaar waxba la sheegay. haddaba marka waxaa soo hadashay shirkadii diyaaradaha Sacuudiga ee Saudi Airlines. haddaba wakaaladda wararka Anadolu ayaa saaka qortay warbixin ay leedahay shirkadda diyaaradaha Saudi Airlines ayaa si kulul u beenisay inay siisay diyaarado iyadoo ay lahayd oo magaceeda lagu soo iibiyay kooxo cunaqabateyn ay saaran tahay in markaa ay siiyeen. shirkadda diyaaradaha Saudi Arabia ayaa sabtidii hore shalay waqti hore waxa ay si kulul u beenisay inay diyaarad kasta oo ay lahayd u dirtay ama diyaarad iyadoo ay lahaydba inay markaa u dirtay qolo ganaaxan oo cunaqabateyn saaran tahay in warkaas uu yahay waraan waxba ka jirin. taasoo xaqiijisay in diyaaradda su-aasha laga keenay la sheegay in markaa shirkado kale oo markaasi loo iibiyey. haddaba war-saxaafadeed rasmi ah oo ay soo saartay Saudi Airlines ay soo saartay sabtidii shalay shirkaddu waxay ku sheegtay inay markaa la socotay waxaa la sheegayo warbaahinta wareegaya in markaa diyaarad nooceedu yahay Boeing 777-200 oo ay lahayd shirkadda Saudi Airlines in markaa lagu wareejiyay shirkad Iiraan. waxay intaa ku dartay in horay ay u iibisay diyaaraddaasi June 7, 2023 iyadoo ka iibisay shirkado kale
shirkaddu waxay xaqiijisay in xiriir kasta oo shaqo ama ganacsi oo ay la yeelanayso shirkadaha kale aanay ku jirin shirkadaha cunaqabatayntu saaran tahay. hadalkan ayaa yimid kadib markii baraha bulshada ay aada uga hadlayeen in markaa iiraan iyo shirkadan ay markaasi xiriir hoose lahaayeen oo diyaaradan shirkadda Saudi Airline la siiyey iiraan. marka waa sheeko iyaduna cajiiba waaye oo la leeyahay Saudi Airline. marka nin aad markaa wax u falanqaynayay oo la wareysanayay Al Jazeera ayaa waxa uu ahaa nin khabiira oo siyaasadka caalamka aad u taxliiliya. waxaa la yiri sheekadan maxaa waaye Saudi Airline. wuxuu yiri marka aad isku dhacdaan dowladda Mareykanka oo xogaa aad isqabataan warbaahintoodu dagaal ay kugu qaadayaan. diyaaraday iiraan u gadayay kanay samaysay sootii maalmihii la soo dhaafay inuu ka hadlaynay Saudi Arabia Chinese xiriir dhaqaale iyo wax walba iyo ganacsi iyo u wareegaysa oo Mareykanku ka xanaaqsanaa oo Mareykanku lahaa ciidankayga waa idinka raranayaa maadaama aad diideen inaanu isticmaalno saldhigyadiina cirka si aan u weerarno iiraan xilligii dagaalku socday. marka buuqaas ayay warbaahintii marka Mareykanku dowladda Mareykanku ku shidaysaa. marka waxaa la rabaa dagaalka Sacuudiga iyo Mareykanka in qiil loo sameeyo. hadhow la yiraahdo Saudi Arabia waxay jabisay cunaqabatayntii la saaray iiraan diyaaraday inta shirkadeedii soo gaday ayay iiraan ku wareejisay. marka wuxuu yiri meesha loolan culusa socda inkastoo dowladda Sacuudiga ay si kulul arikan u beenisay. warka kale ee saakay warbaahinta ay ka hadlayso oo muhiimka ah wuxuu yahay safiirka iiraan u fadhiya waddanka Shiinaha oo shir caalami ah ka qayb galayay ayaa hadallo cajiib ah sii daayay oo warbaahintu dhan ay aad uga hadlayso. wuxuu sheegay marinbiyoodka Hormuz in horta lacag laga qaadi doono 60 maalmood ee lagu heshiiyey inaan wax lacag la qaadin kadib inay lacag qaadi doonaan. dowlada saaxiib la iiraanna aan waxba la weydiin doonin inuu leeyahay. waa arrin cajiiba bogtay saaxiibadeena waxba maartay dhibaato ayagu lama kulmi doonaa kuwa kale lacag laga qaadi doonaa. lacagtaasna wuxuu ku leeyahay canshuur maaha ee waa facility wixii shaqadii meesha adeegii lagu qabanayay badda. marka hadduu meesha ku ciladooba alaabtii lagu soo jiidi lahaa hawada markay wasaqeeyaan sidii loo nadiifin lahaa alaabta reer galbeedka laga bartay bogtay farsame keenayaan. marka nimanka Iiraaniyiinta ayuu farsamadii barka wadaan. haddaba ninka sheekadiisu saakay warbaahinta aad uga hadlayso haddaan idin la wadaago. wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa wuxuu leeyahay safiirka Iiraan ayaa daboolka ka qaaday in markaa ay jiri doonaan arrimo cusub oo ku saabsan habka loo marayo maraakiibta u isticmaalayso marinbiyoodka Hormuz. waxaana uu sheegay inay jiri doonto mucaamalo khaas ah oo dowladaha saaxiibada ah loo samayn doono. haddaba safiirka Iiraan ee waddanka Shiinaha ayaa sheegay in qarash adeeg lagu soo rogi doono maraakiibta ka gudbaya marinbiyoodka Hormuz. soo jeedin ay horay u diiday Washington ayay Iiraan ku dhaqaaqaysaa iyadoo isla markaana ballan qaadaysa dalalka saaxiibka la ah Iiraan inay ka faa'iideysan doonaan oo si gaar ah loo eegi doono. heshiiska is-afgaradka ee dhowaan ay kala seexdeen Iiraan iyo Mareykanka oo loogu talagalay in lagu soo afjaro dagaalka u dhaxeeya labada dhinac wuxuu qeexayaa in maraakiibta ganacsi oo markaa si ammaana inay ku maraan marinbiyoodka Hormuz muddo 60 maalmood iyadoo waxba la weydiin doonin. laakiin muddada wixii ka dambeeya ay markaasi arrin kale ay noqonayso. safiirka Iiraan ninka la yiraahdo Cabdurrida Rahmani ayaa u sheegay isagoo ka hadlayay madasha nabadda adduunka ee magaalada Beijing in waddankiisu uu iskaashi iyo isku dubarid arrintan ku saabsan uu kala yeelanayo
dowladda la yidhaahdo saldanada Cumaan oo ku saabsan qorshayaal cusub oo arrinkan ah. haddaba isagoo hadalkiisa sii wato wuxuu sheegay annagoo ah waddan dhulkiisu uu ku fidsan yahay dhanka marinbiyoodka Hormuz, hubaal waxaa ah buu yidhi inaynu arrinkaa ka shaqayn doono. wuxuu intaa ku daray in markaa qorshahan cusub uu markaasi khuseyn doono hubinta marin ammaan ah oo loo maro marinbiyoodka Hormuz. marka Iiraan waxay leedahay 60 maalmood oo lagu heshiiyey kadib xisaaba bilaabanaysa. hadda wax lacag lama qaadayo, heshiiska ku jirta 60 maalmood ka bacdi markabkii beesha soo baro waa lacag. midda kale dowladaha saaxiibada ee ayaga xilligii adkaana la soo maray way iska marayaan. waa la sii shaadaalinaya marka dowladahaas yaa ka mid ah Shiinaha, Ruushka, waxaa dhan way mari doonaan la leeyahay. duwalu sadiiqa la yiraahdaa dowladaha saaxiibka la Pakistan ka mid ah dowladahaas iyo wixii ayadu ay saaxiib u garato kulli way mari doonaan. marka sheekada marka meesha wax ka muuqata waxa waaye marnaba inaan meesha free lagu mari doonin. Iiraan say u xoreysatay waa meesha cid ka baqaysa male. waatay shalay u hanjabaysay Ingiriiska iyo Faransiiska ay lahayd ka jooga waxa aad meelaha wadaan iyo warbaahinta la isticmaalaysaa miina ka saarayna meesha wax miina ka saari kartaan bal meesha biirada adigu bagashay ee jooga waatay lahayd. marka xaalku halkaas uu maraya. wararkaas waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa ee caalamka ku soo kordhay saaka. fadlan barnaamijka la gareeyo oo share gareeyo. haddaad nagu cusub tahay ha iloobin inaad subscribe ka samaysato YouTube-keena iyo sidoo kale Facebook-ga oo aad follow garayso si aad barnaamijyadan mar walba u hesho. inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo.